بسم الله الرحمن الرحيم walal ku soo dhawow kanaalka socdaal bulsho barnaamijkani haddii uu ku cajabiyey like share iyo subscribe-ka waa xaggeena fikirkaagana waa inoo muhiim ee inoogu reeb commentiga si aad inoo dhiirigelisid waxaan isweydiiyey markaan laxaad beelay nolosha halkeed ka soo geli kartaa maadaama aad laxaadkaaga weyday oo aad qof yani dulsaar ku tahay wax kastoo aan qabsanayay markii anigu aan laxaad beelay meesha way ka baxeen haddii aan cunto cunayo qof baa afka igu guri jiray haddii aan suuliga gelayo qof baa geyn jiray haddii aan isrogayo qof baa rogi jiray farmaan dhaqaaji jirin kaneeca xabada hadday qaniinto qof baan ku odhan jiray iga duuli kaneecada weliba halkay iga qaniintay iyo xog muqdisho soo caasimadda Soomaaliya ma aha magaciina anagoo ku hadlaayo caafimaadkiisa anaga ka faala qaadnay isweydiiyey markaan laxaad beelay nolosha halkeed ka soo geli kartaa maadaama aad laxaadkaaga weyday oo aad qof yani dulsaar ku tahay wax kastoo aan qabsanayay markii anigu aan laxaad beelay meesha way ka baxeen haddii aan cunto cunayo qof baa afka igu guri jiray haddii aan suuliga gelayo qof baa geyn jiray haddii aan isrogayo qof baa rogi jiray farmaan dhaqaaji jirin kaneeca xabada hadday qaniinto qof baan ku odhan jiray iga duuli kaneecada weliba halkay iga qaniintay iyo xog markaa waxaan dib u bilaabay nolol cusub oo ah ta qofka caadigii markuu yar yahay maro oo ilmaha yare soo dhasha inaan iskokrogo inaan marba dhinacaan dhabarka ku siqo inaan soo fadhiisto inaan gacmihii wax ku cuno adigu dib baan u dhashay su-aashaan isweydiiyey waxay ahayd xaggee baan nolosha ka soo geli karaa markaa aan dhakhtarka ku jiray wehelka ugu badan ee aan lahaa waxa uu ahaa radio yar oo buuggayga ku sawiran haddaad isweydiisaan kafarka buuggayga waxa ku sawiran radio yar aan saa u hayo radiogu wuxuu ahaa saaxiibka keliya ee aan marna iga tegi jirin ee waqtiga ugu badan i dhaafin jiray markaan arkay maalin walba wariyaashan imidadaaliya waqtiga ugu badan i dhaafiya ayaa waxaan isweydiiyey dadkan wariyaasha ah sidooda kale ma noqon kartaa marka buuggaa si fiican u akhri doontaan idaacad yar oo radio culture la dhaho baan aasaastay codkaygan ku duubi jiray anoo cajaladahayga iyo waxaa iska duubta ayaa waxaa dhacday telefishinka universal ayaa warbixin iga sameeyey waa 2015 warbixintii dad badan baa daawaday runtii aad bay waxaygii dadka u soo jiiteen dadkii la soo xidhiidhay waxaa ka mid ahaa nin iminka Denmark jooga waxbarashada saxaafadda ayaan kaa bixinayaa buu igu yidhi markaan waxbarashada saxaafadda bilaabay saddex iskuul ayaan raadiyey laba ka mid ah waxay iga hor istaagtay jaranjarta oo waddankeena markaad aragtaan meel kastoo ka midi male raamka ama sallaxa loogu talagalay qofka sidayda oo kale ah ugu dambayn saxaafaddii waan bartay waad dareemi kartaa qof intuu waxbarasho bilaabay aanay u caddayn meel uu shaqo tagaa haddana shaqooyin baan raadiyey adigu idaacadda aan imka ka shaqeeyo ayaan shaqo ka raadiyey laakiin kumaan guulaysan inaan ka helo 2016 bay ii suurta gashay markii koowaad inaan shaqo galo waxaan ka shaqo bilaabay television star la odhan jiro waaga caanka ahaa xaggeega intaa ka gadaale waxbarashadii kamaan hadhin diblom saxaafadda ayaan ka qaatay jaamacadda Hargeysa oo isaguna waayihiisa lahaa buugad ka akhrin doontaan waxbarashadeeda heerka aan ka joogaa maanta waxa weeye degree public administration oo jaamacadda dawladdu ay maamusho CSI aan ka diyaariyey intaa markaan maray hadday shaqo noqoto aniga naf ahaan maxamed ahaan u raadsaday haddii ay noqoto waxbarasho aniga ayaa raadsaday marka waxaan sidii adigu ku dhaado maadaama aanay jirin qof ehelkaaga ama dad ehelkaaga oo caafimaadkaaga ka shaqaynaya adiguna caafimaadkaaga miyaad raadsatid markaan saa idin leeyahay noloshayda caafimaadkeedu hal qof ayuu macno u sameynayay waxa uu ahaa adeerkay cabdiraxmaan ducaale oo Somaliland iyo Soomaaliyadii horeba gudoomiyaha bangiga ka soo noqday bangiga ganacsiga marka adeer uu dhintay markuu dhintayna noloshii oo dhan inaan debero aniga ayay hoos timid
intaa ka gadaalo buuggan baan ka fekeray habeen baa gabadh linkii ii soo dirtay nin dhakhtara oo dibadda jooga kabacdi waxay ku tii walaal dhakhtarka maad la xidhiidhin xaaladaada waxbuu ka qaban karaa markaa jawaabu maan hayn markaa buuggan 2022 bay ugu dhashay inaan qoro adigu waayihiisuu lahaa runtii ilaahay wax caqabada oo hadday tafatirkiisii noqoto nin cabdiraxmaan yuusuf la dhaho oo muqdisho imika ku sugan lagana yaabo inuu bandhiga joogo ayaa ii tafatiray daabacaddii horena waxa qaatay shaqada sagal jeed oo haygeedu yahay magaalada Hargeysa oo aan wax lacag igu xidhin bilowgii ilaa intii ay iga keenayeen buugga runtii bandhigii koowaad Hargeysaan ku qabtay aad baa leen garab istaagay garowna waan imikana waxaan ku suganahay caasimadda ummadda markaan saa leeyahay aniguna waxaan ahay qoraaga ummadda maadaama hadalkayga intiisii u badnaa uu ku qoran yahay buuggayga laba eray oo damuun baan odhan doonaa oo ah mahadnaq iyo inaan fariin halka u mariyo aniga waxay igu kalifay inaan buug qoro waa hawshaan idinka soo sheekiyey buuggaygana ka hadlay inaan buug qoro maanta haddaan muuqaal soo duubo aan dhaho waar waxisiiya waa laga qurux badan yahay laakiin markaad wax la timaado sidaa maantaba idinku ay igu timaadeen si sharaf leh ayaa wixii qofka u kala qaadan karaysa laakiin aniga xaaladaydu mid buuggaygu dambali kara maaha maanta dawlad sharciya oo adduunku aqoonsan yahay oo caalamka anigana wax iga tari karta idiri karta Soomaaliya jirta wasiir waxa jirta markaan saa idin leeyahay inaan daacadnimo idinku warmaan doonaya aniga ma jiro maanta ehel iga dambeeya oo arrinkayga doonaya inuu wax ka qabto igana leeyahay markaan badanka arrin si runa uga hadlayo waxa laga yaabaa dareenkaygu inuu isbedelo laakiin daacadnimaan idinku waramaya aniga cidna yaan laygu hadlay xaaladayda in Soomaaliya ay wax ka qabato ayaan doonayaa intaa marka laga yimaado aad baan ku mahadnaqayaa sida gobonimada leh sharafta leh qof kasta oo u tagay oo safkaygan hore fadhiya oo madaxa ana lugahayga ugu tagay waxaan kaashanayay oo cagahayga ahayd oo barnaamijkaygan milixdiisa iyo sankortiisaba ah walaashay xilibaan gobsan anigu naftaydi kaliya anfacay wali dadkayga ma anficin dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan ma facay muu gaarin waxaan doonayaa inaan la xaadkayga qabo inaan dadkayga anfaco laakiin dadkayga inaan anfaco waxa iga hor istaagay inaan xaadkayga dib u helo waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya aan oo si sharaf leh muwaadin baan ahay xaq leh in caafimaad la yidiro buugayguna food saarun buu ahaa ujeedada ugu weyn waxa weeye inaan caafimaad helo aad baa u mahadsantihiin caawa waan arkayay intaanan iman buhoolku buuxsamay waxaan raali gelinayaa dadka kumanaanka ah ee reer Muqdisho ee waqtigooda qiimaha leh qof wax loo hadiyeeyo waxa ugu qiimo badan waqtiga iyagoo hawlo kala qabsan lahaa iyagoo dana kala qabsan lahaa aniga ii soo huray madaxda shirarka tagi lahayd ee aniga si ii dhiirigeliyaan safka hore u soo fadhiisto oo laga yaabay aniga inay iga soo horeeyeen aad baan ugu mahadnaqayaa Kismaayo wuxuu sheegayaa in hoolka ilaa banaanka hore laamiga ay dadku taagan yihiin de markay ilaahay xulo kula doonayo dadkeedu ku siiya anu haddaan meel inta ka badan heli lahaa way idinku casuumi lahaa tabartayda inta iga raali ahaada qalbigaan idinka jeclahay waxaan doonayaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo nin aad u gabadhnimo badan baa soo hor fadhiya waa odayga meesha caaw waxaan doonayaa inuu dhaho qofkaan buug iibsan waa ulaynayaa madaale waa oday Soomaaliyeed aan ka xumayna adeerkay la kaftamo laakiin waa nin aad maalintii koowaad aan u imi aan hor istaagay wuxuu igu yidhi aniga waxba layma qariyay maxaan kuu qabtaa aad baan ugu mahadnaqayaa
wasiir fiqi aan ku qabtay heritage ii kaalay baan ku yidhi ismaanno aqoon isagana waan u mahadnaqayaa faarax cabdiqaadir oo waxbarashada ku suntan oo anigana ay sharaf ii tahay inaan hortiisa ka hadlo waan u mahadnaqayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya oo ilaa aanu Hargeysa joogay ilaadinayay inaan magaaladiisa ugu imaado oo aan anigu cagahayga ugu imaado imikana hawsheedu qayb weyn ka yahay waan u mahadnaqayaa maadaama oo aan ahay qof dadka aan halka jooga aad u kala garanayn qofka iseegto ee soo sharfay waan raali gelinayaa inaan magaciisa xusi kari waayo igama aha inaanan garanay intii aan garanayo anigaa sheegay waa ay cudurdaari doontaan si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa oo dhammaantood gudugooda igu casuumay oo i sharfay waxaan kaloo u mahadnaqayaa madasha Gobsoor oo aniga halka ay keentay hawsheedana gacan weyn ka geysatay iyo guriyasamo lafteeda oo geedi inagala joogo sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dadkan quruxda halka ka dhacaysa caawa sawir qurux badan bay naga gudbaya saxaafadda anoon kala qaadqaadin aad baan ugu mahadnaqayaa si ay garab istaageen waxaan u mahadnaqayaa dadka reer Muqdisho meel kasta ay joogaan iyo dadka kale caasimadda ku nool ee gobolada ka kala yimi waan u mahadnaqayaa intaa ka gadaal waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo dad halka aanay la joogin oo buugayga iibsaday ugu horeeyay suusaari hore Soomaaliya 100 buug iyo Caliyara Cali oo runtii isaguna gobonimo badan ii sameeyay oo u mahadnaqayaa shirkadan markaan buugga Hargeysa ku soo bandhigayay shirkadda soo daabacaysay China iga doonaysay waxa jirta shirkad halka Muqdisho ku taala oo hadda ii daabacaysa qayb kamid ah imkayna soo gaaraya Irshaad baa la dhahaa nin aad u gobonimo badan oo Cali Irshaad la dhaho isna waa u mahadnaqayaa gabagabadii waxaan ugu dambeyn u mahadnaqayaa walaashay xildhibaan Gobson oo wax kasta oo igaga xidhna barnaamijkayga iyada igaga warwar badan waxay igu tiri waxaan ballan qaadayaa inaan dhexda ku xidho madaxda Soomaaliya kuwooda ugu sareeya inaan halka ku keeno runtii way ka dhabaysay aad baan ugu mahadnaqayaa runtii cagahayga bay noqotay marka hore golaha wasiirada halkan fadhiyo xildhibaanada labada gole aqoon-yahanka dhalinyarada baada saxaafadda iyo oda haldoor asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga hadhiwaa ma karno hanala yaabin haddaan hariwaa dhahno hariwaa iyo haldooree saleelayo haldooraa qaada bahash koobka haldooraa qaaday waa ku faraxsannahay caawa in caasimaddii Soomaaliya magaalada Muqdisho uu soo gaaray wiilkayna haldoor asigoo weliba hadiyad u sido shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool waa ninkii ugu horeeyay aan dhihi karnaa inta qoraal buugaag soo qoray buuggiisa asigoo wada la yimid rabana inuu caafimaadkiisa ku dabaro waxaan leenahay guulayso haldoor ayaan leenahay waxaan aad iyo aad u mahad celinaynaa dhalinyaradii soo abaabushay kulankan quruxda badan oo kala duwan ee marti sharaftan halkan isugu keentay iyo xildhibaanadayna xildhibaan Gobson oo runtii dhexda u xiratay inay haldoor magaalada Muqdisho ku soo dhaweyso hadafkii ujeedada uu yimid inuu gaaro annaga caawa runtii dhalinyaradan intaan ah oo halkan isla joogto fursad ayay u tahay cid kastoo mas'uul oo halkan soo istaagto inay gaarsiiso fariinteeda waxay ka dhawaajisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
إلهي وحول جرا مركز تا قفك أدون كيسا وكالميو مركا ولا لهنا أن إسكاشنو ويل كيننا حنونك أو شيغانا أيو أو هل كان أيميدي هرقيسة بوغاقا لوغا سوقتي قروة بوغاقا لوغا سوقتي مقدشة سو عاصمة سوماليا ماهن مقعينا أنقو كهد لا يعافمت كيسا أنقا كفالة قادني